Afghanistan is beginning its first day with the Taliban effectively in control following the collapse of the Afghan government. Overnight. اختلاف الأوجه في القصر الرئاسي في كابول بات دليلا على مستقبل غير معلوم أمام أفغانستان بعد maalmahan waxaanu la soconay dhamaanteen dhaqdhaqaaqii ka socday Afghanistan ee bixitaanka ciidamadii Mareykanka iyo sidoo kale xawligii Taliban ay ku socdeen ay ku qabseen magaalooyinka Afghanistan xataa ciidamadii Mareykanka ee Kabul joogay iyo sidoo kale shaqaalii safaaradda Mareykanka ee Kabul kamay filayeen in sida dhaqsaha badan ay Kabul soo gali doonaan Taliban markay soo galeen lama filaan ay ku noqotay waxaana filaynaa shalay muuqaaladan aragteen oo ah ciidamadii Mareykanka oo laga daabuleynay caasimadda Kabul iyo soo kale shaqaalii safaaradda Mareykanka iyo dadkii la shaqeyn jiray Mareykanka hadda noqon turjumaano iyo dad qaab kale u la shaqeyn jirayba asalkooda Afghanistan taha xaalad kale ayaana ka dhacday caasimadda Kabul oo airportkii Kabul ku yaalay internationalka gabigiisu wuxuu noqday si bus station oo kale meel bas lagu sugayo kale ayuu noqday waxaan arki karnaa diyaaradaha hareeraha la haysto oo dadka qaar xataa la sheegay marka diyaaradu kacay ka sii laalaadeen oo dad badan ka soo dhaceen oo geeriyoodeen madaxweyne Ashraf Ghani Afghanistan naftirkiisu ka baxsaday Kabul haddaba waxyaabo badan ayaa laga baran karaa marxaladahan Afghanistan marayso balan dib ugu yar noqon taariikhda ururka Taliban iyo sidoo kale Afghanistan sanadii 1979 ayaa Soviet Union ururkii lagu magacaabi jiray ee waqtigaas jiray وحكومة شيوعية أفغانستان كترسن عاومات فولي وصاقل العيامين السوفيتكو أفغانستان قديها يقول لا دقالة ما مجاهدين تي وقت أفغانستان كتشري دقال سقال سنة السعودية أيا السوفيت يونيون كلا قال مجاهدين تي أفغانستان كدقالة ميسي مجاهدين تنو لقيت تغيير تشري بدن ودمان الإسلام هو الريان باكستان السعودي يسوكلهم مريكان كلفتر كيسا أو مجاهدين كنت ما متر مجاهدين وأقل كعادكو قابلة حتى تاكلون ميليترين سينجري وضمان المسلمين تنا كو خاص بيشري وضمان المسلمين تنا بدل كو خاص بيشري إنه أفضيديان تذكر رواني كسو دقالمان أفغانستان إنه تاقان دقال سعودي سقال سنة كديب كون سقال بقول ستيت دي إلا كون سقال بقول ستيت سقال كأي عسكري قدام بي السوفيت يونيون كو كبحي أفغانستان يوغو دقال كان كو هورتي كونا تشابي تاريخيا قار أيام قوا إن شبكة أفغانستان ولو أدوين كلها إن السوفيت كبربرو والله بس أنا كلي كديب دجال كاس أيام السوفيت كبربرو كون سجال بقول سجال شنو كودي لو أدوين أيام كلها دجال كاسي بربر كاس سوفيت سوق لو حب بربرتو إسلا سنة كي كل حاجة كون سجال بقول سجال شيء لبدي حكومة دي سوفيت يونيون كتاجر ترى الشيوعية ده هذا أفغانستان كدسنين ودن كي أفغانستان حالة أذا يوجل كديب بربر كحكومة داس سنة كون سجال بقول سجال شنو فرتي أيام اللي هو مع محمد عمر ayaa asaasay xarakadan Taliban maadaama wadanka marxalada adag galo bila dawladda si wadanka xaaladiisu degto ay asaasay ururkan Taliban lagu magacaabo oo ka asaasay meesha Qandahar lagu magacaabo Afghanistan dhaca xoga kadib waxay ku guuleystaan Talibanti inay dul badan Afghanistan ka taliyaan kuna dhawaaqaan xukuumad Islaamiya Taliban badankoodu waxay u baahan yihiin qabiilooyinka lagu magacaabo Bashtunida oo Afghanistan daga sidoo kale galbeedka Pakistan daga qabiilooyinka Bashtuuniga runaantii wadad wanaagsan ani laftarkii jaamacadda wala dhitaan qaar Bashtuuni oo salaan Afghanistan ka soo jeeda waana dad dhaqan wanaagsan oo islaama oo sunniina Taliban marka waxay socdaanba sanadii 1996 waxay qabsadeen caasimadda Kabul oo kaga dhawaaqeen xukuumad Islaamiya ilaa 2001 way ka talin jireen xukuumadda Islaamiga Afghanistan ay kaga dhawaaqeen wadamo badan oo islaam ah aqoonsaday waxaana ugu horeeyay Pakistan iyo Sacuudiga laakiin wixii ka dambeeyay 12 September 2001 markii daarihii Mareykanka la burburiyay ayaa Mareykanku ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen Osama bin Laden iyo ururkiisu Osama bin Laden wuxuu joogay Afghanistan marka Mareykanku waxay bilaabeen inay ka codsan Osama bin Laden Afghanistan tuu soo dhiibaan laakiin way diideen sadarteed Mareykanku uu weeraray Afghanistan oo weerar ku qaaday dagaal kadib gaashaanbuurta NATO ciidamada Mareykanku hogaaminay way ku guuleysteen inay Taliban ka saaraan caasimadda Kabul laakiin Taliban may burburinin Taliban way joogtay Mareykankuna caasimadda Kabul waxay ka asaaseen xukuumad yar oo gacan ku sameeysa military yarna way sameeyeen hub yarna way siiyeen waxaana la sheegay in Afghanistan waqtigaas uu Mareykanka ama gaashaanbuurta NATO u adeegsadeen hub walba culus oo haystay marka laga reebo bamka nuclearka laakiin Taliban waxaas oo dhan waxba kama tarin 20 sano oo ay dagaal kula jireen Taliban ciidamada Mareykanku waxay ku khasaareen xagaas nafa badan iyo soo kale hanti ka badan 2 trilyan oo dollarka Mareykanka ugu dambeyntiina markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo cadaatay dagaalkan uu ku jabay markii hore uu cadeeyay inuu ku jabay laakiin uu garwaaqsaday hadda dagaalkan si fiican ugu jabay wuxuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa kala soo bixi doono Afghanistan ugu dambeyntiina uu kala baxay asaabiicdii dhaweyd
laakiin saas oo dhan lagama filaynin inay Taliban u qabsan doonto Afghanistan sida dhaqsaha badan leh oo habeen hore oo kaliya ay ku qabsadeen qasrigii madaxtooyada ee Ashraf Ghani farsan jiray madaxweynaha Afghanistan oo xagga soo fadhiisteen haddaba su'aashu waxay tahay xaaladdu sidee ku dambeyn doontaa Mareykanku dagaalkan uu ku jabay kumana soo noqon doona Afghanistan mar dambe inay dhinaceeda ma soogi doono Afghanistanna waxa ka dhalatay xukuumad Islaamiya oo Sunni ah xukuumaddaas ayna ka jiri doonta reer galbeedkuna si u badan tahay wali wada heshiin doonaan Afghanistan dal Sunni ah oo muslimiinta ka tirsanaya oo aqoonsan doonaan markii hore طبعا Afghanistan way aqoonsanayeen laakiin xukuumadda iyagu sameysteen ayay aqoonsanayeen laakiin waqti xaadirkan in Taliban Afghanistan ka taliso way ku khasban yihiin inay aqoonsadaan laakiin xaaladdu waxay ku xuntahay dalka Mareykanka oo shalay waxaan arkaynay Sovietku 9 sano kaliya oo Afghanistan kula jiray dagaal ugu burburay maxaa malaysa Mareykanku 20 sano ku jiray 2 trilyan ka badan ku khasaaray horta marka hore ciidamadii Mareykanka daafaca caalamka joogay macnawiyaadkooda hoos ay u dhici doontaa sababtoo ah way la socdaan jabkan ciidamadooda Afghanistan joogay soo gaaray soo kale sumcaddii Mareykanku caalamka ku lahaa hoos ay u dhici doontaa iyaduna dawladda adduunka ugu tunka weyneed ayaa ka adkaan weyday Taliban oo gabigooda dhar ciidan waxay ka xidhan yihiin dharka Pakistaaniga oo naqaano oo dhar ciidan ahayn aan labisaanin ku xidhanno kabeero buudha oo iska caadiya hubna waxa haystaan oo culusba qoriga AK-47 lagu magacaabo cid walba Mareykanka baqi jirtayna hadda ku soo dhacaysa sababtoo ah sumcadiisa ciidamadiisa militariga ayaa hoos u dhacday sidii markii hore caalamka ku ahaana kuma noqon doono saadaalimahan oo kalena waa wax jira weligeedba oo cidii dagaal ku jabtaa عدو فربنا يشان لكن عندي دجال كقولي ستا أما ملتر هذا جالتا ولا جوده دعوة ولا جسي جستا ما لا صل هذا يجا صلاة سوق أنا دجال كل حدا وذا نقلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب المشاركين تعرب الله جلان دجال كانوا مسلمين تكون شبان شبكي كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جامع ملتر سوق وها وحنا فاهمين إن المجالو يمكن دوام مدينة الربان إن مدينة قبصان ما دام الدجال كل شبيهين إن مدينة قبسان أو أسوهان قل تاجيا مدينة لفتر كذبة صدرت أودر إنه واحد ربان مقالين كاير مدينة كتدي تشوبي مركب حب لاوي إنه سلام مركب عيدا كيسي أو داوع وكفر بنا أنتي بقبتي إنه عيدا مدي كعيو سلام مركب كذا بتاعه عيدا مدي مكة دجال كيحد لبعش صدح شك كذبة وحو كذا بتجي عيدا مدي مكة أو وده كوسي تشرو ولي مكة كوسي سعودة وحانو فرستمان لغو مرعب حمراء الأسد أو رناهانتي ماشا مركا مسلمين تشوغين صدح شيء تشوغين لكن مشركين تي عربادة مكا كوسي سعود ما يسوى لابان أو قوشي داس أنسكا قادين إنا يدادين أو كما يسوى نقون دقالكا لكن مقالوين كي ريراي ربين مدينة كوسو دولان وسو قادة وركي ها إنو محمد صلى الله عليه وسلم تعيين كيسي كحيستي وحمراء الأسد فرستي وصدح شيء سوغي الرين مكا مركا مقالوين كي مدينة كوارا رسنا مركا أركينا محمد صلى الله عليه وسلم عيين كيسي ودقالو ديارا ويسكدايا وحكمت ملتر رناهانتي ونو محمد صلى الله عليه وسلم فهمي إني مقالين كارا مدينة كوارا رسن شبكي ساركان يشبك عيامي المسلمين تا وهي ربان نكسو دولان سؤالك هذا سوق قالوا كسابسن قولي مسلمين تا وقت المسلمين فرص فرنين بقر كيف فرص مركو بحثة كسرى ودنكاس الشينيس كهذه بقر كيف شينا حكوري ورنيو إسواعوي هديك لا دت كان سيداني جاي جلنا كله كوب جلنا وبرتاسي كوبوي ماريا لكن بقر كيف شينيس كم حبوت شوابي وحكوري ورانوغا أودو ما يقوم هذه دمعان بوراها بربريان وبوراها قوستان marka hada dagaal ku jabto cad farabadana diyaalanaysa hadaad ku guuleysatana walaga sii wada jeesina walaga dhacay sida boqorka Shiinayska muslimiinta uga dhacay يا معشر المسلمين هذه أول وقعة لنا مع الفرس ولا يكونن لها شأن عظيم Mareykankana saameynta caalamka ku lahaa hoos ay u dhacday aadaanu raacinba saameyntaas aanu burburin Israel afterkeedu saameynaysa Afghanistan burburka ciidamada Mareykanka ka soo gaaray oo Hezbollah iyo Hamas ay ku sii diiran doonaan in Israel sii edbiyaan oo ay ku daydaan walaalahoodaas Taliban ee ciidamadii Mareykanka riyaday ugu dambeyntiina Afghanistan dawlad Islaamiya oo Sunni ah ay noqotay reer galbeedku hadiidaan ama ha ogolaadaan iyaga ayuu taala si u badan taayna way la heshiin doonaan Taliban muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay fadlan muuqaalka ku cusubtay subscribe sar like na sar muuqaalka commentiga guna muhiim والسلام عليكم